waxaad ku guulaysan kartaa shabaab waad ka kartaa diinta ilaahayna akhrisataan uurkoolna ahaataan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aad u mahadsantiin deegaanka goobo oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waa taliska ugu weyn ee ciidanka dawixreynta deegaanada goobo iyo ceel Juqow isla markaana ciidamadii dhawaan cashir ka lamay waan ka argagixisada ugu dhigay deegaanka ceel Juqow ee gobolka Hiiraan ayaa waxa booqasho dhiirigelin ugu tagay ciidamada ku sugan deegaanadaasi xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolo oo sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danab oo horkacaya taliye Xasan Tuure gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalana iyo qaar kamid ah horjoogayaasha ciidanka dawixreynta deegaanadaasi ayaa xildhibaanka iyo gudoomiyaha uga warramay duruufaha adag ay ku shaqeeyaan ayagoona ka dalbaday in ka maamul ahaan iyo ka dawlad ahaanba laga caawiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidamada dawixreynta deegaanka sida gaadiidka ay ku dagaalami lahaayeen dadku waa sidaas oo hadda waa dadkii deegaanka oo dhulkoodu jooga laakiin wax ka bedela qoryahana xoolay kala baxeen oo naftooda iyo maalkooda u gateen laakiin wax badanaa ka dhiman oo laga maarmaan sida gaadiid oo kale hal baawur ma qabanay meel ku aadan hal baawur isku gurmada ma hayaan hadduu col dhaco marka baahida noogu daran hadda oo burunta iskorsa oo baahida colaada ah xildhibaan iyo gudoomiyaha gobolka waa gaadiid wax baawur habeerta ciidankaas ma qaban haday gooba tahay haday ceelay tahay iyo haday Juqow tahay saddexdaas aaga meeshan ka jirta habeeraat ciidankan dib u xoreynta oo hadda meesha fadhiya deegaanka waxa ku kalifay inay qoriga qaataan dhistim ciidan ay isku dhisaan waxa ku kalifay nimankaas cadawga ah arxanlaawayaasha ciidan marka ninkii yaqaano wuxuu leeyahay baahi ciidan wax la yiraahdo ciidankii deegaanka waxay u fadhiyaan halkaas ugu xiran yihiin ciidan ma ahayna waxay ahayn shacab waxay u safan yihiin ay hubkooda guryaha iyo xoolada kala baxeen soo qaateen waa difaacu nafs naftooda ku difaacayaan iyo maalkooda iyo diintooda gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa sheegay in argagixisada looga adkaan karo oo kaliya midnimo dadka deegaanka uga mahad celiyay halganka adag ay kula jiraan waxaana uu kula dardaarmay inay sii labalabaan halganka nabadiidka looga sifeynayo gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Soomaaliya militariga Soomaaliya inta haysataan oo haystaa Sooma isma qalowdi dheeriyaa bis iyo amar kala qaadasho adikuna qabeelnimada curad iyo hebelo ma laha jirno tabtii isku amri jirtay sanadkan waxaan rabnaa liista unika baasho inay ahaato haddaan lees maqal oo aan lees dhegaysan oo aan leesu hoggaansamin ma idinku dhaartaa shabaab inaan laga adkaanin shabaab waxaa looga adkaa karaa in lees dhegaysto lees maqlo ay bahashu ay ahaato أولي دير كذا هاتو شباب ساسان وقت كاكرنا waxaad ku guulaysan kartaa shabaab waad ka kartaa diinta ilaahayna akhrisataan uurkoolna ahaataan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aad u mahadsantiin dadka deriska idila ah waa ku celinaya dadka deriska idila oo qabaa'ilada Soomaaliyeed waxaan rabaa aragti ka duwan aragtidii hore dhulka lagu joogi jiray in la isticmaalo maanta waa soo dhaweynayna waana saas inuu soo qaadaan raba inta saartaan diyaar muuna warkaas inta diyaar muuna aad iyo aad ma santiin xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolo oo dhageystay duruufaha adag ay ku shaqeeyaan dadka deegaanka iyo sida nabadeedka isaga difaaceen ayaa u ballan qaaday inay heli doonaan agabka ay u baahan yihiin kulana dardaarmay inay muujiyaan dhabar adeeg isla markaana ka dalbaday dadka deegaankaasi inay soo dhaweeyaan ciidamada gurmadka dawixreynta dagaalka ka dhanka argagixisada looga sifeynayo gobolka Hiiraan ee guud ahaan Soomaaliya maalmaha soo aadan imaan doona deegaanadaasi dal difaac lagu difaac dal sideedaba cadawga in is hor fadhisiin oo isku daasheen macna male cadawga waa inuu ama ku baxsho ama bixiso adiga gacantaada haddaad meel saan u saarto 5 daqiiqo kadib waa dareemay hal saac hadaa ku haysidna ma soo qaadi kartid ka warnaan dhowr sano meeshan fadhi marka aniga sideedaba ma qabo shabaabka difaac in loo galo ma jirto shabaab sidiisaba in la weeraro waxa laga rabaa shabaab haddaad burburisiin oo aadaya bal ka qabatiin oo laga qabto tardo oo jiinka laga sifeeyo oo wax laga qabto oo ceelbuur laga qabto oo dhulka laga qabto shabaab horta waa ka taga laakiin meeshan ku sukay meeshan ku soo istaagaya baahi ilaaha dabooli kara wax kasta oo baahiyo oo suurtagal dabcan meeshan
laba caloolada aan asal qoriga calooshiis iyo qofka calooshiis iyo hadduu dhaawacmo in dhibkiisa wax laga qabto ilaa hadda waxaan aaminsanahay wixii meeshan ku dhaawacmo kolba xamara la geeyey wixii tabarutaana waa la daryeelay waxa dhaawacmi doona haddii ilaah yiraahdo ilaahayba dhaawaceenna ha yareeye dhimashadeenna ha yareeye waa la daryeeli doonaa gaadiid la'aanta iyo saad xumada iyo saxiix xumada dadka la qabtiin goon uma tihin idinka reer goob ma ahano aniga shakhsiyan hal noohan aad keenay